Halkani waa shabakada JMN ee laanteeda af Soomaaliga. Waxaad nagala socon kartaan barteena Facebooka iyo YouTube-ka. Wararka ugu doorka roon oo maanta idiin hayno waxaa ka mid ah webiga Abaay iyo Badda Cas waa aasaaska xaqiijinaya horumarka dhameystiran ee Itoobiya. Madaxweynihii hore ee Suuriya oo dil lagu xukumay. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil oo ka horjoogsaday qorshe Trump wado. Wararkaasi oo si faahfaahsan ayaan idinla socodsiin doonaa. La socod habboon ayaan idin leenahay. Webiga Abaay iyo Badda Cas waa aasaaska xaqiijinaya horumarka dhameystiran ee Itoobiya iyo isku xirka gobolka. Injineer Habtaamu Itafah ayaa yiri sidaas. Webiga Abaay iyo Badda Cas waa aasaaska hubinaya horumarka dhameystiran ee Itoobiya iyo isku xirka gobolka, ayuu yiri wasiirka biyaha iyo tamarta Injineer Habtaamu Itafah. Abaay iyo Badda Cas waa labo dhinac oo isku mid ah taariikhda Itoobiya, dhanka siyaasadda, juqraafiyeed iyo kobaca dhaqaalaha. Labada biyood waa biyo xidheen istiraatiiji ah oo go'aamiya dheelitirka awoodda qariidada siyaasadeed ee gobolka. Haddaba Itoobiya waxay wadaa shaqooyin diblomaasiyadeed si waafaqsan mabda'a faa'iidada labada dhinac si loo hubiyo helitaanka dekedda. Wasiirka biyaha iyo tamarta Injineer Habtaamu Itafah ayaa sheegay in webiga Abaay iyo Badda Cas ay go'aaminayeen masiirka Itoobiya. Wuxuuna sidoo kale sheegay in jiritaanka Itoobiya ay si dhow ula xiriiraan biyahan. Wuxuuna tilmaamay in quwadaha shisheeye ay isku dayeen siyaabo kala duwan si ay uga hortagaan Itoobiya in ay horumarto oo ay isticmaasho webiga Abaay. Isla markaana wuxuu tilmaamay in Itoobiyaanku ay bixiyeen qiimo culus marka laga fogeeyay Badda Cas. Wuxuuna sheegay in iyadoo la marayo biyo xidheenka Itoobiya, Itoobiyaanku ay awood u yeesheen in ay gaaraan mid ka mid ah riyooyinkooda oo ay qarniyo badan ku riyoonayeen. Wuxuuna sheegay in tani ay tahay guul u suurtagelisay in ay jabiyaan saameynta lagu hayay Itoobiya. Wuxuuna sidoo kale tilmaamay in biyo xidheenka weyn ee Itoobiya uu yahay mashruuc matalaya weynaanta Itoobiyaanka oo ay awoodeen inuu joojiyo shirqoollada muddo dheer ka socday dalka aan doonaynin horumarka Itoobiya. Wuxuu sidoo kale xusay in kadib markii Itoobiya faraheeda uu ka baxay Badda Cas, shirqoollo iyo khiyaano kala duwan, iyagoo diidaya soo qaadista arrintani, isla markaana u yeelaya amaba u bixinaya magacyo kale. Wuxuu tilmaamay in helitaanka Itoobiya ee hadda jirta in ay si nabad ah dib ugu soo ceshato dekedeeda ay muujisay ballanqaadyo hogaamineed oo weyn. Wuxuuna tilmaamay in arrinta Badda Cas aysan ahayn arrin dowladeed amaba urur siyaasadeed, laakiin ay tahay arrin jiilal badan leh. Wuxuuna sheegay in webiga Abaay iyo Badda Cas ay yihiin aasaaska hubinta horumarka dhameystiran ee Itoobiya iyo isdhexgalka gobolka. Wuxuuna sidoo kale tilmaamay in ay gacan ka geysan doonto yareynta caqabadaha juqraafiyeed ee caalamiga ah iyo khatarta amniga ee Badda Cas. Wuxuu tilmaamay in Itoobiyaanku ay ku celin doonaan midnimadii ay ku muujiyeen biyo xidheenka weyn ee helitaanka Badda Casna. Madaxweynihii hore ee dalka Suuriya Bashaar al-Assad oo dil lagu xukumay. Garsoorka Suuriya ayaa madaxweynihii hore ee Bashaar al-Assad oo ku xukumay dil isagoo maqan, iyagoo ku eedeeyay in uu galay dambiyo u dhigma dambiyo dagaal iyo dambiyo ka dhanka ah ee aadanaha. Kadib markii uu qarxay isku horimaadkii uu dalka soo maray tan iyo 2011. Xukunkan ka dhanka ah ee Assad, isaga iyo qoyskiisa iyo saaxiibadiisa dhow
u cararay Moscow kadib markii xukunkiisii la riday bishii Diseembar 2024. Waa xukunkii ugu horreeyay ee ay soo saaraan mas'uuliyiinta ku-meel gaarka ah ee kadib markii ay bilaabeen sanadkan in ay maxkamadeeyaan mas'uuliyiin ka tirsan nidaamkii hore iyagoo maqan iyo shaqsi ahaanba. Waxaa sidoo kale maxkamadda lagu helay inuu galay Atnaf Najiib oo qaraabo la ah Mudane al-Assad, isla markaana madaxa ka ahaa amniga siyaasadda ee gobolka Daraa ayaa sidoo kale lagu xukumay dil. Gobolka Daraa ayaa ah halkii ay ka bilaabatay kacdoonkii dibadbaxayaasha ee ka dhanka ah taliskii Bishaar al-Assad. Atnaf Najiib oo la xiray sanadkii hore ayaa lagu helay dambiyo ay ka mid yihiin dilka caruur iyo jirdil sababay dhimasho. Mas'uuliyiinta dowladda ku-meel gaarka ah ee Suuriya ayaa isku dayaya in ay maxkamadeeyaan xubno ka tirsan dowladdii hore, qaar ka mid ah iyagoo maxkamadda hortooda jooga, qaarna iyagoo maqan. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil oo ka hor istaagay qorshihii Trump uu wado. Inkasta oo Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo si cad u diiday qorshihii cusub oo ka kooban 15 qodob oo ay soo jeediyeen Guddiga Nabadda, kaasi oo loogu gol leeyahay in Xamaas xubka looga dhigo gudaha Gaza, haddana arrintan uma muuqato in ay tahay dhammaadka doodda amaba mowqifka kama dambaysta ah ee qorshaha Aqalka Cad. Weli si rasmi ah uguma uusan hadalin arrintan. Si kastaba ha ahaatee, wararku waxay tilmaamayaan in Aqalka Cad uusan si weyn uga walaacsanayn hadallada Netanyahu, isla markaana uu hadalladiisi u arkayo kuwa ku saabsan xal-ku-dhigidda ololaha iyo mowqifyada siyaasadeed ee xil doorashooyinka guud ee aasaasiga ah ay soo dhow yihiin. Waxaan fahamsanahay baahiyaha siyaasadeed ee Bibi, ayuu yiri wariyaha reer Israa'iil Barak Ravid oo ka soo xigtay sarkaal sare oo Mareykan ah. Sarkaalka ayaa intaasi ku daray, ilaa iyo inta uu sameynayo waxa aan ka codsanno inuu sameeyo wax dhib ah kuma qabno. Mowqifyadan gaar ahaan marka ay timaado xakamaynta weerarada Gaza. Maalmihii u dambeeyay, weerarada Israa'iil ee Gaza ayaa u muuqda in ay istaageen amaba si weyn hoos u dhacayn. Tan waxay ahayd mid ka mid ah shuruudihii Hamas ku xirtay ku biirista qorshaha 15 qodob ee uu taageerayo Mareykanku. Waxaa jira calaamad kale oo muujinaya in Israa'iil ay diyaar u tahay in ay horumariso qorshaha nabadda ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee Gaza, iyadoo la diyaarinayo in la geeyo ciidanka caalamiga ah ee xallinta arrinkaasi.